السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن وناكسن درهانتين باخيارته هذا قيمها هي شرفت مدن وحين سوق قارنا هذه عن سودا توسك يدين كسو تبين جرني وروحي جودها نبي سوق قاري ديجان كتلك يدعى الدنيا ده وحس توصيد كو رمي دونتا أنا جو أحب ونجاس هذا بدو ورك حل تبين إنه وراد وجدور كررنا وح كميدا قار كميدا جود ده شوكت ده جرا حل بعنا ده دولة ديجان كسو مالي ده إثيوبيا يا كرمر حولات كسو مري مشاريع ده هرمرنات اللي جه هرجلية سند ميزانية ده كان لبده كونية سديد ده دقمة أو برا قبل كان فافن sidoo kale gudida joogtada ee golaha wakiilada shacabka dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa kormeer hawleed ku soo maray goobaha laga hirgeliyay mashaariicaha horumarneed ee 2008 tirsi taariikheedka dalkeena Itoobiya ee degmada Hadagaale ee gobolkaasi City kulliyada tababarada iyo waliba xirfadaha ee maamulka magaalada Qabridahar ayaa bilowday daboolida kuraasta dugsiyada sanad miisaaniyadeedkan laga hirgeliyay guud ahaan deegaanka Soomaalida ee Itoobiya qodobadan idinka hayna dalka dibadiisana waxa kamid ah ururada ka soo horjeeda madaxweynaha dalka Suuriya al-Asad ayaa diiday in ay joojiyaan colaadda sokeeye ee dalkaasi ilaa inta uu xilka u hayo dalka Suuriya al-Asad واساخياري واقار كميد قodobada wararka imikii haatana u diyaar garooba faafaynta wararkani oo dhameystiran markale kulantu wacan oo xiisa xambaarsan warkii oo dhameystiran qaar kamida gudida joogtada ee golaha wakiilada shacabka dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa kormeer hawleed ku soo maray mashaariicaha horumarneed ee laga hirgeliyay sanad miisaaniyadeedka 2008 degmada aw bare ee gobolka Faafan warbixin murtaas ku saabsan waxaynu eegaya wariye Cali Aadan Calayaanle Xildhibaanadan oo kamid ah gudiyada joogtada ah ee golaha baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxa hogaaminaysa Marwa Firdawsa Maxamed Afhayeen ku xigeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida waxaana kormeerkani yahay mid markaasi lagu marayo mashaariicda laga fulinayo degmada Awbare waxayna xubnahani ay shir la qaateen maamulka degmada Awbare halkaasi oo maamulka degmada ay kaga dhageysteen warbixin la xiriirta mashaariicda sanadka 2008 waa taariikhda tirsiga dalka ee kawaasoo laga hirgeliyay degmada Awbare sidoo kalena Marwa Firdawsa Maxamed Afhayeen ku xigeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa iyaduna goobtaasi ka hadashay iyadoo markaasi sheegtay ujeedada socdaalkooda iyo kormeerkooda kaas oo ku wajahan inay markaasi ay kormeeraan mashaariicda degmadan laga hirgelinayo xildhibaanadan ayaa waxa booqashadooda ay ka bilaabeen dhismaha deyrka loo sameeyo xarunta maamulka degmada iyadoo ay wehelinayaan mas'uuliyiinta degmada Awbare xubnahan kamida gudiyada joogtada ah ee golaha baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalidu ay kormeerkooda markaasi ku tageen dhismaha biyo xidheenka laga dhisayo degmadan Awbare biyo xidheenkan oo mid hadda ay ka socoto shaqo badan oo ay ka howlgalayaan shaqaale adeegsanaya gaadiidka culus ayaa waxa xildhibaanada goobtaasi warbixin ay kaga qaateen gudoomiyaha degmada Awbare mudane Maxamed Cabdi Faarax hadaladiisina waxa kamid ahaa biyo xidheenkan aan joogno waa biyo xidheenkii koobaad ee degmada Awbare laga fulinayay kaasoo maxaa la dhahaayay joog ahaan dhan hadda saad arkaysaan 5 mitir dhar ahaana dhan 400 mitir marka guud ahaan maxaa la dhahaayay arajeenino at least 2 kilomitir oo biyo inay fariistaan kaasoo biyaha aan ku qiyaasayno 3,700,000 mitir cube biyo dhan inay fariisan doonaan mustaqbalka kaasoo bulshada iyo dunyaduba cabitaan uga faa'iideysan doonto mashaariicdan hadaba laga fulinayo degmada Awbare ayaa waxa kamid ah dhismaha deyrka 3 barkadood 2 dugsi waxaase ugu balaaran oo mashaariicdan ugu weyn biyo xidheenkan Marwo Ciraaq Cabdi Shide madaxa xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ee degmadan Awbare ayaa waxay faahfaahin ka bixisay mashaariicdan guud ahaan ka socota degmadan gaar ahaanna biyo xidheenkan anagu waxaan leenahay degmadanada waxa loo qabtay 3 dhaam baa loo qabtay 3 dhaam oo ay ku bixisay lacag dhan 9 milyan iyo 600 kana waa dhaamkii u weynaa ee qabanay asagoo hadda maxay hayday gabagaba ku jiro kanaalkii iyo wixii oo dhan la sameeyo marka waxaan leeyahay waxyaabaha guulahaas balaaran oo dhan waa waxyaabihii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya uu soo hooyay 2008 maxay hayday loo qabanayay dhammaan degmooyinka oo dhan sidoo kalena madaxa xafiiska horumarinta biyaha ee degmada Awbare mudane Cabdixakiin Nuur Axmed ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay isagoo markaasi sheegay heerka uu markaasi marayo biyo xidheenkani dhaamkan joogno wuxuu ku yaala qabalayga Dilaaq Shaali biyaha uu qaadi karno waxa weeye 3,700,000 mitir cubic كل بيرب بدن إلا 400 هكتارنا إن كفاية استمر رجيننا كل هذا هوشو واحد كشرتها جبجبو
xildhibaanada oo kormeerkoodu yahay mid shaqo ayaa waxa aynu ka wareysanay afhayeen ku-xigeenka baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Marwo Fardowsa Maxamed Maxamed hadaladeedina waxa kamid ahaa hadda hafardhaamkan aan taaganahay waa hafardhaam laga fulinayo degmada Awbare ee qabiladeeda mid kamid ah waana runtii hafardhaam servicing kara xoolihii dadkii iyo beerihii way hadda waxaad arki kartaa markaynu halkaas soo maraynayo kale in kanaalo loo samaynayo loo sii deyn doono beeraha qorshaheenuna uu yahay xoolo dhaqato beeraley sida aynu noqon lahayn marka runtii waa wax lagu diirsado in mashaariicdan dhinac walba laga eego kormeerkan hadaba qaatay saacado badan ayaa waxa uu yahay mid lagu eegayo mashaariicda degmada Awbare Marwo Nasra Xasan Axmed oo kamid ah gudida joogtada ee golaha xildhibaanada baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida kana mid ah xubnaha kormeerkan sameynaya ayaanu markaasi wax ka weydiinay bal sida uu kormeerkooduna yahay iyo sida uu socdo kormeerka ilaa iyo shalay aan soconay waxyaabo badan oo bulshada wax u qabanaya wax qabad u ah ayaanu soo aragnay oo wax walba oo maaragtay qorshihii loo qabtay 2008 itus oo itaabsi ah qorshe dhamaaday waanu aragnay qorshihii oo socda waan ku faraxsanahay run ahaantii goobaha aan soo taabanay daba xildhibaanadana ayaa waxay kormeerkoodan oo ku eegayaan adeegyada dhinaca biyaha waxbarashada iyo waliba dhismaha deyrka cusub ee xarunta maamulka degmada Awbare kormeerkan ayaa wuxuu noqonayaa kii labaad ee markaasi ay guddadana ku maraan degmooyinka Qabri Bayax iyo waliba degmadan Awbare oo ka tirsan gobolka Faafaan ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya guddida joogtada ee golaha wakiilada shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa iyaguna kormeer hawleed ku soo maray mashaariicaha horumarineed ee sanad miisaaniyadeedkan 2008 laga hirgeliyay degmada Hadhagaale ee gobolkaasi City warbixin murtaas ku saabsan waxaynu eegayaa wariyaha alaab ee nooga soo warama gobolkaasi City Ahmed Faarax Geyd tiim ka socday xafiiska golaha xildhibaanada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan la qaatay xubnaha kabinega ee degmada Hadhagaala ee gobolka City tiimkan oo kamid ah gudida joogtada ah ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadaba ujeedada socdaalka tiimkani ayaa ah mid ay ku doonayaan in ay ku soo kormeeraan mashaariicaha horumarka ee laga fulinayo degmooyinka gobolka City uu ka kooban yahay heerarkooda kala duwan iyadoo oo tiimkani ay kormeerkooda shaqo ay diiradda si gaar ah ugu saarayaan mashaariicaha biyo-xidheennada kuwaas oo sanadan 2008 laga fulinayo degmooyinka isla markaana xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay u qaadatay qorshaha koobaad ee dhinaca adeegyada bulshada oo ah dhinaca biyaha kulankan ballaaran oo ay si wada jir ah ula yeesheen maamulka degmada Hadhagaala iyo tiimkan xildhibaanada halkaasi ooga xog waramay guud ahaan mashaariicaha heerarkooda kala duwan ee degmadaasi Hadhagaala gaar ahaan mashaariicihii 2007 iyo kuwa 2008 gudoomiyaha degmada Hadhagaala mudane Khadar Abiib Ismaan iyadoo oo sidoo kale uu halkaasi ooga warbixiyay ujeedada socdaalkooda garwadeenka tiimkani xildhibaanada ah Maxamed Bedel Cabdi kadib gabagabadii kulankani ayaa ay xubnahani kormeer shaqo u gaadheen dhismaha mashruuca biyo-xidheenka Gurgur ee degmadaasi Hadhagaalo oo maraya meel fiican waxa kale oo kamid ah mashaariicaha ay soo kormeereen dhismaha xafiisyada dhismaha kuliyadda Polytechnic waxaana qabalaha Gurgur ka socda dhismaha mashruuca biyo-xidheenka aanun wareysiyo kala duwan kala yeelanay xubna ay kamid ahaayeen madaxa xafiiska biyaha ee degmada Hadhagaalo mudane Xasan Macallin Maxamed iyo sidoo kale qaar kamid ah tiimkani xildhibaanada oo iyagu halkaasi u gaadhay kormeer shaqo tanoo ka duulina jihadii xukuumadda soo saartay anoo ka duulina ayaan waqtigii loogu talagalay iyo nidaamkii loogu talagalay aanu dhisnay markaas saad aragtaan ba waxa loogu talagalay inuu spillway lahaado ama spillwaygiisa uu leeyahay slope-kiina waa loo sameeyay wad aragtaan inay biyuhu meesha u jiibsan karaan oo inay taagahayn wad aragtaan sida loogu talagalana uu dhisan yahay mashruucan hadda waxaan u joognaa degmada Hadhagaale qabalaha Gurgur qabalahaasaakiisa Jiic waxaan dhex taaganahay waa barnaamijkii laga qabtay qabalahan Gurgur sida indina ku aragtaan qabalayga waxa weeyaan barnaamijkii laga qabtay wuxuu marayaa meel fiican waa fardhaam aad baaxad weyn oo qabalahan dadka ku nool iyo qabalayada kale waxa weeyaan meelaha ka dhow
iyo guud ahaan degmada dadka ku nool ay ka wada faa'iideysan doonaan. Isku soo wada duubo kormeerkani shaqo ay tiimkani xildhibaanada ayaa noqon doono mid ay kormeer noocan oo kala ah ay ku gaadhaan degmooyinka Erer, Afdam, Shiniile oo ka mid ah degmooyinka gobolka City. Axmed Faarax Geyd, telefishinka caalamiga ah ESTV, degmada Hadagaala. kulliyadda tababarada iyo xirfadaha ee maamulka magaalada Qabridahar ayaa bilowday daboolida baahida loo qabo kuraasta dugsiyada. warbixin murtaas ku saabsan waxaynu eegay wariyaha alaaba inooga soo warramo gobolkaasi Qorraxay Maxamed Cabdi Cali Garbo. kulliyadda tababarada xirfadaha iyo farsamada magaalada Qabridahar ayaa bilowday daabulaada kuraasta dugsiyada waxbarashada gobolada Jarar, Qorraxay iyo Doolo. daabulaadan kuraastan dugsiyada waxbarashada ku kala yaala saddexdaasi gobol waxa sameeyay arday iyagu hore uga qalin jabiyay kulliyaddan tababarada xirfadaha iyo farsamada magaalada Qabridahar, kuwaas oo iskaashato ahaan loo abaabulay isla markaasna wax kasta ay u baahnaayeen kulliyadani ka caawisay. mas'uuliyiin isugu jirtay maamulka gobolka Qorraxay, maamulka gobolka Jarar iyo mas'uuliyiinta kulliyaddan tababarada xirfadaha iyo farsamada magaalada Qabridahar ayaa kormeer indhayn shaqo ku gaadhay habsami socodka daabulaada kuraastan dugsiyada waxbarashada ee saddexdaasi gobol. gudoomiyaha maamulka gobolka Qorraxay Mudane Yuusuf Aadan Yuusuf iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Jarar Mudane Cabdi Cali Matan ayaa wariyaasha deegaanka kula hadlay gudaha kulliyadda tababarada xirfadaha iyo farsamada magaalada Qabridahar, halkaas oo laga rareeyay kuraasta dugsiyada waxbarashada ee saddexdaasi gobol. baryahan baa macadku wuxuu dadaal dheeraad ugu jiray inuu soo saaro kuraasta saddex gobol oo ka kooban ilaa 11,000 oo kursi si loo gaarsiiyo halkii kursiba saddex arday ayaa xukuumaddu waxay tallaabo adag maaragtay ka qaaday in maaragtay saddexda tiifeed ee ku yaalo deegaanka loo qaybiyo dhammaan kuraasta gobolada ayadoo aad sidii hore uga badan. hadda degmadii tusaalahan 200 oo kursi lahayd maanta ilaa 500 600 oo kursi bay leedahay. marka maanta dadaalkii uu sameeyay macadku dartii waxaa la rarayaa gobolka Doolo oo lahaa ilaa 1800 oo kursi oo la rabaa ilaa bari inay gaadho. wada aragtaan baawartan hadda la saarayo kadibna aan gobolka Jarar intuu lahaa intii loo raro lagu xijisiyo kadibna Qorraxayaan markaas maadaama xaruntii aan ku naalo aan kadibna Qorraxayna loo qaybiyay degmooyinkiisii. sharaf iyo runtii wanaag noo ah in ardadii ka baxday kulliyadda farsamada gacanta gobolka Qorraxay ku taalo magaalada Qabridahar in ay iyagiina shaqo abuur samaystaan oo shaqo qabtaan runtii wax tayalan ay sameeyaan oo waarta hadda baalkan muxuu ah hadda miiskan kursigan iyo miiskan isku yaalo waad garan kartaan hadda ka hor meelaan arkay masaabiir baa halka ku jirtay laakiin haddan qalab tayaysan baa ku jiro. runtii waa qalab tayale iyo shaqo tayale oo shaqo abuur ah. marka runtii wax aad iyo aad loogu farxo way. kusimaha maareeyaha kulliyadda tababarada xirfadaha iyo farsamada ee magaalada Qabridahar Mudane Cabdirashiid Cismaan Maxamed ayaa ka hadlaya howlahan kuraastan haatan loo kala daabulayo gobolada Jarar, Doolo iyo Qorraxay. kuraastan waa kuraas aan xaqiijinay tayadooda weeyaan iskaashatooyinkana sidoo kale aan garab badan kulliyaddu iyo maamulkeeduba ay siiyeen iskaashatada laftigeeduna ay dadaal badan muujisay si ay si degdeg ah wax qabad u keento oo ay kuraastan u dhamayso. waxaanan rajaynaynaa waqti dhow gudihii inaan gabagabayno dhammaan. qaar ka mid ah ardaydan iyagu horey uga qalin jabisay kulliyaddan tababarada xirfadaha iyo farsamada magaalada Qabridahar ee iskaashato ahaan loo abaabulay ayaa dhankooda ku soo dhaweeyay dareen farxadood maadaama ay markii ugu horeysay ku guuleysteen in ay sameeyaan kuraas tiradooda kor u dhaafayso 12,000. waana kuwan qaar ka mid ah xubnaha iskaashatooyinkan Meer iyo Dahare oo iyagu ka howlgala kulliyaddan tababarada xirfadaha iyo farsamada magaalada Qabridahar kuna guuleystay in ay sameeyaan kuraasta dugsiyada waxbarashada ee gobolada Jarar, Doolo iyo Qorraxay. kulliyadii aan wax ku baranay ayaan haddana wax ku soo saaraynaa dawlad deegaanka iyo allaha awoodda leh mahad iskale midda kaleeto dhulkanagii iyo dadkanagii baan anfacnay. waana la ururiyay iskaashataana laga dhigay shaqadii baana loo abuuray mashiinadii qaybta alwaax iyo qaybtii alxanka anuu iminka qaybta alxanka gudoomiyeedii baan ahay. dawladduna aad bay u mahadsan tahay si noo garab istaagtay noo garab qabatay qalab bay noo garab istaagtay shaqa noo abuurtay.
kuliyadan tababarada xirfadaha iyo farsamada ee magaalada Qabdahare oo kamid ah kuliyadaha ka jira deegaanka waxa ay ku howlan tahay dadaal sal ballaaran oo ku aadan nimitaanka saboolnimada abuurista fursado shaqo iyo in la sameeyo wax soo saar la taaban karo iyadoo oo talaabadan haatan lagu dhameystiray kuraastan dugsiyada waxbarashada ee saddexdaasi gobol Jarar Qoraxay iyo Doolana kaalin wanaagsan ay ka geysan doonto dadaalka lagu doonayo kor u qaadista tirada iyo tayada waxbarashada dugsiyada deegaanka Soomaalida Itoobiya. Maxamed Cabdi Cali Maxamed Garbo kala warbaahinta deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Qabdahare gobolka Qoraxay. kulan ku saabsanaa qaabka bulshada ay ula xiriidha xarumaha caafimaadka ayaa ka dhacay degmada Araarso ee ka tirsan degmooyinka hoos yimaada gobolka Jarar. warbixin muurtaas ku saabsan waxay noo eegay wariyaha alaab ee nooga soo warama gobolkaasi Jarar Maxamed Ibrahim Ruushka. kulankan oo ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi Araarso ee gobolka Jarar ee dowladda Soomaalida, mas'uuliyiinta degmadaasi iyo waliba xubnaha ka socday xafiiska caafimaadka ee dowladda Soomaalida ayaa waxa kulankan muhiimad diiradda lagu saarayay sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka bulshadu ay la leedahay xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmadaasi iyo sidii looga hortagi lahaa xanuunka inta aanu ku dhicin bulshada. waxaana kulankan diiradda lagu saarayay isku xirka bulshada iyo xarumaha caafimaadka. ugu horintii waxaa furitaanka ka soo jeediyay kusimaha gudoomiyaha degmadaasi mudane Cabdullaahi Maxamed Siyaad, mas-uulkaas oo sheegay in laga maarmaan ay tahay in bulshadu ay ku xirnaato goobaha caafimaadka si looga hortago buuri wax kastoo khatar oo ku iman kara bulshada. kulankeena wuxuu ku saabsan yahay isku xidhka bulshada iyo xarumaha caafimaadka. waad ogtiin xarumaha caafimaadka in xiriir toos ah lala lahaada loo baahan yahay, in lagu xidhnaada madaragta loo baahan yahay, inaan ka wada qayb qaadano isku xidhka xarumaha caafimaadka inaan hirgelino in ay mid toos ah noqoto oo dhammaan bulshada ku xidhan tahay. xarumahaas waxay u furan yihiin bulshada inay adeeg siiyaan bay u furan yihiin. marka waxa weeye macaamiishu in ay taa madaragtay si toos ah ugu xidhnaadaan baa loo baahan yahay. waxaa kulankan looga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya bulshada iyo xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmadaasi, isaguna sidoo kaleeto hadal ka soo jeediyey madax kooxeedkii ka socday xafiiska caafimaadka ee dowladda Soomaalida mudane Haashim Cabdi Maxamed, kuwaas oo indhawaalaba socdaale ku gaara bixinayay degmooyinka ka kooban yahay gobolkaasi Jarar deegaanka. socdaalladaas oo salka ku hayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka bulshadu ay la leedahay xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolkaasi. tashigeennani waa tashi ku saabsan isku xidhnaanshaha bulshadu inay ku xidhnaato xarumaha iyo goobaha caafimaadka. maxaa yeelay istiraatiijiyadda caafimaadka ee hadda taallay waxa weeye ka hortag weeye, intuusan xanuunku dhicin ka hor in laga hortago. inkastoo kulankan uu ahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka bulshada iyo xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmadaasi, wakiilka xafiiska caafimaadka ee dowladda Soomaalida u qaabilsan gobolkaasi Jarar, mas-uulkaas oo cadeeyay ahmiyadda ay leedahay ku xirnaanshaha xarumaha caafimaadka iyo sidii bulshadu ay mar walba u ahaan lahayd kuwa iyagu ka faa'iideysta wacyigelinta caafimaadka ay bixinayaan khubarada dhinaca caafimaadku. kusimaha xafiiska caafimaadka ee degmadaasi Araarso mudane Bedel oo isaguna ka hadlay kulankan ayaa soo dhaweeyay qabashada kulankani lagu xoojinayo xiriirka bulshadu ay la leedahay xarumaha caafimaadka, kaasoo geestiisa ballan qaaday inay sii xoojin doonaan wacyigelinta ku aadan dhinaca bulshada iyo sidii bulshada loogu xiri lahaa xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmadaasi Araarso. qaybta ugu muhiimsan inta badan waa ka hortag weeyaan. marka ka hortaggu wuxuu u sahlaa hooyadu si ay u hesho adeegyada aasaasiga ah inay marka ugu horeysa inay faham ka qaadato. tusaale ahaan oo kale hadday tahay mother household ama maaragtay ay tahay xidhmaha caafimaadka, hadday tahay talaal qaadashada iyo hadday tahay wacyigelinta guud ee nadaafadda qoyska iyo shakhsigaba. marka ka hortaggu waa tiirka macnaha caafimaadka. qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb gashay kulankan ayaa iyaguna soo dhaweeyay geestooda kulankaasi, kuwaasoo dhinaca kale uga mahadceliyey xafiiska caafimaadka ee dowladda Soomaalida tallaabooyinka uu mar walba xafiisku kula socdo xaaladda caafimaad ee bulshada ku dhaqan gudaha deegaanka. hooyooyinkiina dee siday ku soo noolaan jireen iyadoo geedigeen meel cidlaa loo guuray oo reerku cidlo socdo iyo geed hoosti ku foolqaadi jirtay, iyadoo reerku la wada garab marayo yaa geedka hoosta lagaga dhalin jiray. ilaahay baa inala sugay inaa yacni habeenkay uur qaada iyo habeenkay umulayso iyo kolkay ka baxayso intaa inaa caafimaad lala kortaagnaado iyo raaxo ilaahay baa inala sugay. haweenkayagii waxaanu ku dardargelinay goobta caafimaadka inay ku dhalaan, taasay ka helayaan dhalmo nadiifa. annagoo 24 saac dowladeedii nala daba joogto inay goobta caafimaadka ay haweenkayagii ku dhalaan,
laakiin ilaahay baa mahadle maanta dowladayadina garab taagan tahay si fiican baanu dhakhtarkayaga ugu xidhannahay waxaana kulankan ugu soo beegmayaa xilli degmadaasi Ararso ee gobolka Jarar dowladdeegaanka Soomaalida ay ka socdaan mashaariic ballaaran oo ku aadan dhinaca horumarka taasoo xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay ka wado degmadaasi Maxamed Ibrahim telefishinka Soomaalida Itoobiya degmada Ararso مسؤولين كسعودة حفيز كمالية يهور مرنت دقالها يدول ديجان كسومالي ده إثيوبيا يا كورمير هولاد كسومرة مشاريع دبيها إلا جودة دقمة اللي هي قبل كاسن نقبر بحين مرتاس كسابسن وحينو إيجيا وريها على بين نقص ورما قبل كاسن نقب عبد الكافي أحمد ولي كورمير كان هولاد أو أي كوذا قيب قادن هيان مسؤولين كسعودية حفيزك مالية يهور مرنت دقالها الدولة ديجان كصومالي ده إثيوبيا يمام ملك الدقمة اللي هي قبل كنقب أيا وحيه وجددا كورمير كان أهيدا مد لوجو كورجاليو جدي سعود كشقه مشروع بيحران كان لقى وده طولة الساعة وكتر سندقمة اللي هي قبل كنقب بيحران كان أو هوشي سال لقى وده طولة الساعة وكتر سندقمة اللي هي قبل كنقب أيا وح وجهرين إنه جور بحيه وجددا كورمير كودن هولاده قدوميها degmada laga hida mudane Cabdikariim Axmed Maxamuud maanta ayaa waxaan soo kormeeray dhaamkii loo qodayay bulshada ku nool degmada laga hida taas oo looga faa'iideynayo warawga beeraha iyo cabitaanka bini'aadankaba isla markaana anagoo soo booqanay dhaamkii ay shaqada ka socoto oo ay shaqeynayaan cagafyadii iyo dhammaan shaqaalihii kale taba dhaamkan bulshada laga hida wuxuu u faa'iideyn karaa baan oran karaa baahi fara badan oo jira dhinaca biyaha aad iyo aad buu soo kabi karaa baan leeyahay boqolkiiba boqol sidoo kalena qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada laga hida ee gobolka Nogob oo ku hawlana fulinta shaqada mashruucaasi oo ay ka mid ahaayeen madaxa arrimaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee degmada laga hida mudane Maxamed Cadaani Farax iyo sidoo kale ku siisimaha madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee degmada laga hida mudane Cabdiqaadir Cali Siyaada ayaa sheegay inay habeen iyo maalinba u taagan yihiin sidii ay u fulin lahaayeen shaqada mashruucan waxayna hoosta ka xariiqeen inay shaqada mashruucana ku soo afjari doonaan xilligii loogu talagalay kan waa fardhaamkii degmada laga hida magaciisa waxa la yiraahdaa Saato ma taqaanay 500,000 oo qoys way ka faa'iideysan kartaa ma taqaanay markaas waxa weeye xagga beeraha danyarta bulshada aad uga faa'iideysan kartaa ma taqaanay wax alla wixii ma taqaanay shacabkina aad iyo aad uga farxsan annaguna waxaan ku rajaa weynahay inaan ma taqaanay sida ugu dhaqsaha badan dhameystiro waxaana soo booqatay wufuud fara badan oo ka tirsan heer deegaan iyo heer degmada kuwaas oo dhaamka qaabkan u wadnay qaabka uu socda abaabulkiisa nagala qayb qaadanaya dhaamkuna si fiican buu socdaa deegaankan waxa ugu dhow meel 20 kiiloomitir u jirta biyaha dad badan oo shacab ah oo bulshada oo reer baadiya iyo beeraley ah ayaa ka faa'iideysan kara isleeyahay kolkan soo gabagabeyn dhankiisana Cabdirashiid Sheekh Cabdullaahi oo ahaa mas'uulka hogaaminayay tiimka ka socday xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kormeer hawleed ku marayay dhammaanba degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Nogob ayaa nooga warbixiyay ujeedada kormeerkoodan hawleed ay ku soo gaadheen biyo xidheenka laga wado hawshiisa tuulada Saato oo ka tirsan degmada laga hida ee gobolka Nogob waxaan ahay tiimka dabagalka mashaariicaha ee gobolka Nogob oo dhan anoo hadda horta dhex taagan daamka laga hida laga qodayo daamkano aad moodayn u weyn yahay shaqo badan ay ka socoto hadda lafteeda oo shaqadii socotana aan aragno oo la rabo inay bulsho aad u fara badan ay ka faa'iideysato xoolo dhaqato haday tahay beeraley haday tahay iyo dhammaan ummad kale oo dhan inay ka wada faa'iideysan karaan biyaha uu qaadi karo biyaha daamkan aan hadda dhex taaganahay ee ka mid yahay mashaariicda ay fulinayso degmada laga hida Cabdikaafi Axmed Wali telefishinka caalamiga ah ee ESTV tuulada Saato ee degmada laga hida ee gobolka Nogob munaasabada lagu soo dhaweynayay kooxihii ka qayb galay tartankii ciyaar dhaqameedka ee qaryaan doodaan ee dhawaan lagu qabtay xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga loona qabtay dhalinta daadooda ay ka hooseyso 18 jirka ayaa waxa xaflad soo dhaweyn loogu sameeyay maamulka magaalada Qabridahar ee xarunta gobolkaasi Qorraxay warbixin umurtaas ku saabsan waxay noo eegaya wariyaha laabay nooga soo waramo gobolkaasi Qorraxay Maxamed Cabdi Cali Garbo
munaasabad lagu soo dhaweynayay kooxihii uga qayb galay ismaamulka magaalada qabri dahare tartankii qaryaandhoodaan ayaa ka dhacday madasha shirarka ee maamulka magaalada qabri dahare munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka magaalada qabri dahare maamulka gobolka qoraxay taageerayaasha kooxihii ka qayb galay tartankii qaryaandhoodaan matalayay maamulka magaalada qabri dahare iyo marti sharaf kale maayirka maamulka magaalada qabri dahare marwo ifraax cumar muuse ayaa madashaasi hadallo hambalyo iyo bogaadin isugu jirta madashaasi uga soo jeedisay dhalinyartii uga qayb gashay ismaamulka magaalada qabri dahare tartankii qaryaandhoodaan xafladii ahayd guushii aad soo hoyseen kooxaha maamulka magaalada qabri dahare taasoo aan sugaynay muddo badan waqtina aan ugu soo jirnay inaad guusha soo weynaysaan ayaa waxay tahay caawa midaan aad ugu faraxsannahay oo idin kala qayb qaadanayno oo markasta annagoo isku duuban dhammaan maamulka magaalada qabri dahare hogaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee gobolka qoraxay mudane cabdi xasan xaaji oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii heer gobol qoraxay oo ka qayb gashay munaasabadaasi lagu soo dhaweynayay dhalinyartii iyagu ka qayb gashay tartankii qaryaandhoodaan matalaysan ee maamulka magaalada qabri dahare ayaa halkaasi hadallo soo dhaweyn iyo bogaadin isugu jirta madashaasi kasoo jeediyey inaad meesha aad gaadheen maxaan ku dhahdaa aad ka sii wadaan haddii aad tihiin dhalinyaradii maamulka magaalada qabri dahare dhiirigelintan iyo caawa maxaan ku dhahdaa xafladan maamulka magaaladu soo diyaariyey waa mid maxaan ku dhahdaa aad iyo aad aan ugu faraxsannahay qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan xarunta gobolka qoraxay magaalada qabri dahare oo kasoo qayb gashay munaasabadan lagu soo dhaweynayay dhalinyartii uga qayb gashay ismaamulka magaalada qabri dahare tartankii qaryaandhoodaan ayaa soo dhaweeyey dhalinyartaasi kooxdii saddexda gashay oo ah kooxda koonsal oo maamulka magaalada qabri dahare run ahaantii waxaan ugu hambalyeynaynaa hambalyo ayaan leenahay si farxadeed caawana waxaanu joognaa goobtii loogu dhigay xalfadda dhawaan unbay ahayd markii lasoo gabagabiyey tartankii dhaantadii qaryaandhoodaan ee dhalinyarta da-dooda ka hooseysa 18 jirka ka qabsoontay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga halkaas oo ay ku looltamayeen kooxo ka kala yimid afarta ismaamul magaalo iyada oo ismaamulkan magaalada qabri dahare kooxihii ka socday ay galeen kaalinta saddexaad maxamed cabdicali maxamed garba oo kaalida warbaahinta deegaanka soomaalida Itoobiya magaalada qabri dahare degmada dhanaan ee gobolkaasi Shabeelle ayaa waxaa laga hirgeliyay waqti xaarikan tallaabooyin horumarineed oo markaasi wax lagaga bedelayo nolosha bulshada warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegayaa wariyaha alaab ee nooga soo warrama gobolkaasi Shabeelle Xasan Cabdi degmada dhanaan oo kamid ah degmooyinka gobolka Shabeelle ayaa waxay ku tallaabsatay horumar ballaaran isla markaasina waxa magaalada dhanaan ee xarunta degmada dhanaan ka socda dhaqdhaqaaqyo horumarineed oo kor loo qaadayo bilicda iyo sidoo kale dhismaha bilicda magaalada dhanaan waxaana hantiilayaasha u dhashay magaalada dhanaan ay isbedel wanaagsan ku sameynayaan dhismayaal kala duwan taasoo qayb lixaad la ka qaadanaysa koritaanka iyo sidoo kale bilicda magaalada dhanaan shacabka ku dhaqan magaalada dhanaan ayaa aad u soo dhaweeyay dhaqdhaqaaqyada horumarineed ee ka socda magaalada dhanaan isla markaasina sheegay inay doorkooda ka qaadanayaan si loo taabageliyo qorshaha kobaca isbedelka wajigiisa labaad horumarka iyo nidaamka ka jira xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed uu gaarsiiyay deegaanka waa mid ku habboon oo aragti aan u baahnayn ma garanaysaa aad baan u faraxsanahay qaybaha bulshada annagoo higsanayna nina hirgeliyay waxyaabooyin uu noo qabtay oo ma garanaysaa dhanka ururka dhalinyarada dhanka nabadgelyada dhanka horumarka qayb walba ay ahaato aad baan ugu faraxsanahay maanta degmada dhan waxa ka muuqda isbedelo ballaaran xag dhalinyaro xag maamul suuban xag dawladnimo maanta waxa la dhigay dhaantan maanta joogno waa mid xana qaaday waa mid la socota GDP-ga qorshaha deegaanka oo hirgalay marka dhalinyarada dhan maanta ururka dhalinyarada degmada dhan ka jira waa urur boqolkiiba boqol shidan waa urur u diyaargarowsan dhinac walba xag horumarineed xag nabadgelyo xag maamul suuban duqa magaalada dhanaan mudane Maxamed Qaalib oo warbaahinta deegaanka ugu waramayay magaalada dhanaan ayaa waxa uu sheegay in magaalada dhanaan ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo horumarineed isla markaasina ay ka jiraan adeegyada aasaasiga isla markaasina ay sii xoojinayaan iyagoo kaga qayb qaadanaya abaabulka bulshada si kor loo qaado bilicda magaalada dhanaan inta horumarka iyo magaranaysaay uu fahmay waxqabadka iyo dhulka inay ayagu leeyihiin ay aamineen waxa weeyaan maalinba maalinka ka dambaysa dhaqaaleedu uu soo kordhaya waxa weeyaan shacabku nin kastaanba in uu wax faa'iideysto waxa weeyaan dhanaantii hore iyo dhanaanta cusub bay maanta kala yihiin si quman baa horumarka looga faa'iideysanayaa
alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaa weeyaan odayaasha iyo dhallinyarada iyo culimadiinka cid kastaanba horumarka maanta dhanaan ka jira waa ka shaqaynayaan wayna aaminsan yihiin magaalada dhanaan oo xarun u ah degmada dhanaan ayaa waxaa mara jidka laamiga ee isku xidha Jigjiga iyo sidoo kale magaalada Goday isla markaasina waxaa sanooyinkii la soo dhaafay ay ku tallaabsatay horumar ballaaran taasi oo halbowle u yihiin shacabka ku dhaqan degmada dhanaan oo iyagu doorkooda ka qaatay isla markaasina waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo horumarineed oo kor loo qaadaya bilicda magaalada dhanaan Xasan Cabdi ESTV magaalada dhanaan olole nadaafadeed oo markaasi lagu ilaalinayo bilicda iyo quruxda magaalada Qabri Bayax ayaa ka dhacday isla magaaladaasi warbixin murtaasi ku saabsan waxay noo eegay wariyaha alaab inooga soo waramo gobolka Faafan Kaamil Cali olole nadaafadeed ayaa laga fuliyay magaalada Qabri Bayax ololaha nadaafada oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bulshada ku kala nool xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay ayaa ahaa mid ujeedadiisu ay tahay in magaalada la ilaaliyo nadaafadeeda taasoo lafdhabar nadaafadu ay u tahay ilaalinta caafimaadka waliba goobaha sida fiican loo sifeeyay waxa kamid ah dugsiyada waxbarashada ee magaalada Qabri Bayax xarumaha caafimaadka gaar ahaan xarunta caafimaadka ee magaalada Qabri Bayax iyo goobo kale oo ka tirsan xafiisyada dawladda ololahan oo subaxnimadii la bilaabay waxa bulshadu ay muujisay niyad wanaagsan iyo farxad ay iyagu toddobaadkiiba maalin ay ku nadaafadeeyaan magaaladu sida ay u dhantahay iyagoo og caafimaadka saldhigiisu uu yahay ka koobaad nadaafad waxaan hadaba halkaasi kula kulanay duqa magaalada Qabri Bayax mudane Cabdi Fataax Bashir Abdurrahman oo sheegay ujeedada nadaafadan bulshadu ay joogtada uga dhigatay magaalada inay ka sifayso qashinka iyo wixii la midka ah ololaha nadaafada wadaan waxa weeyaan in aanu sare u qaadno bilicda magaalada iyo inaan magaaladan ka dhigno bulshadan ka dhigno bulsho xadaarad leh oo nadaafada si sare u ilaalisa taas oo caafimaadka bulshada wax weyn ka taraysa iyo magaalada bilicdeeda sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay ku-xigeenka duqa magaaladaasi Axmed Daahir Ismaaciil oo isaguna sheegay ololahani inuu yahay mid qorshaha dawladda hoose kow ka ah sidoo kale waxa iyaguna ololahaasi nadaafada ka hadlay Mukhtaar Maxamed Cali oo ah madaxa arrimaha bulshada iyo Faysal Cabdisalaan oo ah hoggaanka nabadgelyada ee dawladda hoose maanta waxaan isugu soo baxnay in aan magaaladayada nadiifino ama bilicdeeda aan kor u qaadno marka magaalada maadaama magaalo soo koraysan tahay bilicdeeda inaanu sare u qaadno oo aanu nadaafadeeda si xawli uga shaqeyno ayaanu mataqaan ayaan go'aansanay qorshayaasheedii horena ahaa marka qorshayaasheedii qorshe kamid weey qaar kamid ah bulshada halkaasi ku nool oo iyaguna sheegay ujeedadoodu inay tahay in ay ilaashadaan nadaafada oo ah saldhigga caafimaadka ololaha nadaafada aan soo baxnay xarunta caafimaadka ayaa ka shaqeynaynaa maalin kasta ololahana saasaan u wadaynaa annaga iyo maamulka iyaga oo iskarabkaysaysanna waxaan isugu soo baxnay nadaafada bilicda magaalada in aan ka hagaajino qashinada magaaladuna waa magaalo soo korayso in aan hagaajisano ayaan ugu tala jiraa waxaan u soo baxnay nadaafadu calool xanuunka qashinka waxa weeyaan haweenku waxaanu intaas oo ruuxa u soo dareerinay inay nadaafadu inay noo hagaagto Kaamil Cali ESTV magaalada Qabri Bayax ee degmada Qabri Bayax ee gobolka Faafan tababar ku saabsanaa koobka kubadda cagta oo ay ku tartamayaan 12 kooxood oo ka socda santarada hoos yimaada degmada Awbare ee gobolka Faafan ayaa ka furmay isla degmadaasi warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegaya Cabdi Cumar tartankan ciyaaraha cagta ee dhexmaraya dhalinyarada santarada hoos yimaada degmadaasi Awbare ayaa ka furmay isla degmadaasi Awbare iyadoo dhalinyarada degmada Awbarana ay ku lolamayaan kubaddan cagta iskuna wadaagsanayaan khibradoodaga iyo sidoo kale dhaxgalka dhalinyarada iyo sidii dhalinyaradu ay isku xidhnaan lahaayeen mar walbana u kobcin lahaayeen fadooda ciyaaraha isboortiga ee kala duwan iyadoo degmada Awbarana mar walba ay wadadada lagu kobcinayo dhalinyarada iyo sidii dhalinyarada la isku xidhi lahaa isla markaana loo abaabuli lahaa si markaasi dhalinyarada ay u kobciyaan xirfadooda ciyaaraha kala duwan oo ciyaarta kubadda cagta ay ka tahay isla markaana dhalinyartana ay ku loloomayaan tartankan koobka kubadda cagta ee degmadaasi Awbare waxaana tartankan kubadda cagta ee ka furmay degmadaasi Awbare ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Awbare iyo sidoo kale madaxa arrimaha xisbiga ee degmadaasi Awbare salaamina 12 kooxood ee ku lolomaya tartanka koobka kubadda cagta ee degmadaasi Awbare waxaana dhalinyaradani la hadlay gudoomiyaha degmada Awbare mudane Maxamed Cabdi Faarax oo tilmaamay in inta ay ku jiraan lolonka kubadda cagta ay muujiyaan anshax wanaag iyo sidoo kale kala qaadashada khibradoodaga iyo si xoojinta abaabul
abaabulka iyo iskaashiga dhalinyarada laga qaybgelinayo horumarka qaybihiisa kala duwan. waxaan isugu nimidnay inaan furanno ciyaarihii kala duwanaa ee loogu talagalay qabaliyada degmada Awbarre kuwaasoo maxaa la dhahay hadda saad ku aragtaan ciyaartooyga kubadda cagta ay garoonka diyaar ku yihiin iyadoo maxaa la dhahay kooxahana aan kula dardaarmayno nin kasta wuxuu ka yimid qabale waxaa la rabaa maxaa la dhahay qabaleegaad ka timiday magac iyo sumcad inaad u qaadaan loo baahan yahay magac iyo sumcad markaan leenahay waxa weeye akhlaaq xumo inayna ka muuqan intaad maxaa la dhahay aad ciyaarta ku jirtaan muhiimadda kubadda maxaa ciyaar marka la ciyaarayna waxa weeye ishbiliinka waa arinta ugu muhiimsan weeye kubadda lagu ciyaaro iyadoo waxa la idinku qabtay tartankana ay tahay inaad maxaa la dhahay aad kala dhaxashaan khibradaha dhanka macna ciyaaraha madaxweynaha xisbiga ee degmada Awbarre mudane Xakim Axmed Khaliif ayaa isaguna sidoo kale dhalinyarta ku booriyay inay muujiyaan ciyaar wanaag iyo sidoo kale anshax wanaagsan maadaama ujeedada tartankan kubadda cagtu yahay sidii dhalinyaradu isku dhaxgali lahaayeen una kala qaadan lahaayeen khibradooda lagu kobcinayo xirfadaha ciyaaraha isboortiga ee kala duwan. aan ka furaynaa koobkii kubadda cagta ee degmada Awbarre dhalinyarteeda taasoo laga soo xulay santarada degmada Awbarre ama qabaliyada degmada Awbarre iyadoo mataqaanay go'aanka iyo qorshuhu uu ahaa mataqaanay in dhalinyar tayo leh oo dhisan oo wanaagsan la soo saaro dhalinyarta waxaan kula dardaarmayaa sidoo mataqaanay gudoomiyuhu soo sheegay in waxa fiican la kala dhaxlo waxa xunna meesha laga saaro. kusimaha madaxa xafiiska isboortiga ee degmadaasi Awbarre ayaa isaguna sidoo kale tilmaamay in kooxahani ay yihiin 12 kooxood oo laga soo kala xulay santarada degmadaasi Awbarre isla markaana lagu sii xoojinayo ciyaaraha isboortiga ee kala duwan gaar ahaan kubadda cagta. halkan maanta waxaa si rasmi ah nooga furmaya koobkii degmada Awbarre oo qabalayaasha Awbarre aan ka soo ururinay xulal aan ka soo xulanay 12 sayid ee Awbarre oo qabalay walba sayidkiisa sidoo isku raacsan yihiin aan ka soo xulanay aan halkan isku keenay. qaar kamid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay tartankan kubadda cagta ee ka furmay degmadaasi Awbarre ayaa iyaguna cabiraya dareenkooga. waxaan aad ugu faraxsanahay koobkan loogu bilaabay degmada Awbarre ee qabaliyada ama santarada waxaan ku faraxsanahay insha Allah hadii aan guuleysano iyo hadii laga guuleysto alxamdulillah waan leenahay. waxaan aad ugu faraxsanahay oo shucuurteeda maanta la soo koobi karin in koobka halkan nooga dhacaya sida ay noogu hirgeliyeen degmadeeda waxaan aadna ugu mahadsanyiin. waxaan maanta aad iyo aad ugu hambalyeynaya dhammaan ciyaartooyada iskaga soo qayb galay ee halkan maanta ka ciyaari doona waxaana mahadda iska leh maamulkayga degmada Awbarre. tartankan kubadda cagta ay ku lulumayaan 12 kooxood ee ka kala socda santarada degmadaasi Awbarre ayay ujeedadiisu tahay sidii dhalinyarada isku dhaxgali lahaayeen una kala qaadan lahaayeen khibradooda iyadoo halkaasina lagu abaalmarin doono kooxaha ku guuleysta kaba dambaysta tartankan kubadda cagta ee ka furmay degmadaasi Awbarre sidoo kalena la rabo in la soo saaro xulka matalaya degmadaasi Awbarre ka qayb qaadan doona tartanada kubadda cagta ee degmooyinka sidoo kale gobolada deegaanka. weli halka khiyaaraysa tooska nagala socotaan waa TV-ga caalamiga ee Soomaalida Itoobiya qodobadan idinka hayna deegaanka gudihiisa intaas aynu hadaynu kaga nimaadno aynu eegna qodobada naga soo gaadhay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. mas'uuliyiinta wasaaradda xoolaha iyo kheyraadka kalluunka ee heer qaran ayaa sheegay in la wado dadaalo calaf tayo leh loogu abuurayo xoolaha ku dhaqan deegaanada dalka ay saameysay abaartii ka dhalatay isbedelka cimilada. warbixin murtaas ku saabsan waxaynu eegay wariye Maxamed Cabdi Wahaab. wasaaradda horumarinta xoolaha iyo kheyraadka kalluunka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa sheegtay in deegaamada dalka ay abaaruhu saameeyeen laga wado dadaalo kor loogu qaadayo beerista calafka xoolaha inkastoo ay si joogto ah u socdaan howlaha gurmadka iyo gargaarka degdega ah ee la gaarsiinayo dadka iyo dunyada ku dhaqan qaybaha dalka ee ay saameysay abaartu. haddana waxay sheegaysaa xogta guddiga heer qaran ee maareynta halista abaaruhu in la wado dadaalo isbarbar socda oo lagu beerayo calafka xoolaha dalaga beeraha iyadoo la adeegsanayo waraabka maadaama uu dalku leeyahay xoolaha ugu tirada badan ee ku dhaqan qaaradda Afrika. waxaa adkaanaysa in calafka kaalmada ah ee la gaarsiinayo xoolaha tabaaleysani ay kaga baxaan abaarta sidaasi awgeed loo baahan yahay in la beero calaf dhul baaxad leh laga beero kaasoo leh nafaqo tayadeedu ay sareyso. haddaba deegaamada dalka ee ay saameysay abaartani oo ay ka mid yihiin deegaamada Canfarta iyo Soomaalidu ayaa waxaa ka socda dadaalo dhul baaxadiisu dhan tahay 1800 oo hektaar lagaga beerayo calafka tayeysan ee xoolaha iyadoo la adeegsanayo habka waraabka.
agaasimaha guud ee qaybta horumarinta xoolaha iyo kheyraadka kalluunka ee wasaaradda mudane Gifawas Antasama oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in calafkan deegaamadan laga beeray haatan marxalado kala duwan ay marayaan howlaha beeristiisu uu wax weyn ka tari doono baahida dhinaca calafka ka haysata xoolaha ku dhaqan qaybaha ay abaartu ka saameysay deegaamadan ከአንዱ ሄክታር ከ40 እስከ 44 ሺህ ቶን ሳር ይገኛል ብለን ነው የምንገምተው እና ይሄ ከፍተኛ ምርት ነው የተሻሻለ መኖ ዘር ነው waxaan filaynaa in aan halkii hektaarba ka soo saarno 40 ilaa iyo 44 kun oo tan oo doog ama coos ah waana wax soo saar heerkiisu sareeyo oo tayo leh waxaan filaynaa inuu calafkani intuu ku filnaado inuu ka soo haro xoolaha ku dhaqan dhulkaasi sidaasi awgeedna waxaanu diyaarinay bakhaaradii ku habboonaa ee lagu keedin lahaa hadhaaga calafkan dhinaca kale wasiirka wasaaradda xoolaha iyo kheyraadka kalluunka ee dalka mudane Silashi Geetahun ayaa isaguna sheegay in dadaalada beerista calafka xoolaha ay barbar socdaan fulinta qorshe hooleedyo xooga saaraya diyaarinta fursadaha suuqa xoolaha si dadka xoolo dhaqatada ah ee bulshooyinka kamid ah ay ugu fududaato in xoolahooga ay ugu helaan seeladihii ku habboonaa ee ay kaga macaashi lahaayeen የተወሰኑ ኮር የሆኑ ዝርያዎችን እነሱ መርጦ አንድ ቦታ የማቆየት በኋላ ደግሞ ዝርያዎቹን ሁኔታዎች ሲመቻቹ እነዛን አውጥቶ ወደ አርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ ማቅረብ የሚቻልበት ሁኔታ ለማድረግ የሪስቶኪንግ የተወሰኑ ዝርያዎችን የሚያዝ ስራዎች meelaha ay dhibaatooyinka noocan ahi ka jiraan waxa habboon in meesiyada xoolaha qaar kamid ah la keeno suuqyada ku habboon waxaana loo baahan yahay in markii seeladaha la keeno loo helo ciddii iibsan lahayd waxaana dhacday in markii ay abaartu dhacday in xoolo badan lagu iibiyay qiimo aan u qalmin oo hooseeya haddaba si dhibaatadan loo yareeyo waxa la sameeyaa dadaalo xal loogu helayo caqabadahan kuwaasoo ah in la isku xidho bulshada iyo jaamacadaha dalka si loo abuuro fursad habboon oo dhinaca suuqeynta ah waxa kale oo la sameeyay raadinta fursadaha suuqgeynta ee ay ka mid ka yihiin in dibadda loo dhoofiyo haddii ay jiraan xoolo badan wayna jiraan fursadahani ah in maalqabeennada wax dhoofiya iyo bulshada xoolo dhaqatada ah la isku xidho horeyna waa loo fuliyay haddana way socdaan howlahan mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee dalka Brazil ayaa ku dhawaaqay olole cusub oo dalkaasi lagaga sifeynayo cayayaanka Zika oo laga qaado cudurka Zika virus warbixin murtaas ku saabsan iyo wariye Cali Barkhad wasiirka caafimaadka ee dalka Brazil ayaa ku dhawaaqay in muwaadiniinta dalkaasi ay olole aan loo kala hadhin ku qaadaan jirid goynta cayayaanka dhaliya cudurka afka qalaad loo yaqaano fayraska Zika mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegay in xalka kaliya ee loo hayo cudurkan ay lagaga hortagi karo waqti xaadirkan uu yahay in la baabi'iyo cudur sidaha xanuunkan dhaliya oo ah cayayaanka xambaara fayraska caabuqa fidiya haweeneyda madaxweynaha ka dalkaasi Brazil Master Dilma Rousseff oo ay wehelinayaan xubnaha golaheeda wasiirada ayaa safka hore ka gashay ololaha dabargoynta cayayaanka fidiya cudurka halista badan ee afka qalaad loo yaqaano Zika virus ololahan oo qorshaha lagu hagayo dhigayo in 3 milyan oo guri oo laga nadiifiyo cayayaankan ayaa waxa magaalada Rio de Janeiro oo kaliya ayaa waxa la ololahan fulintiisa ka qayb qaatay 7,000 oo qof oo kamid ah ciidamada dalkaasi wuxuu warku intaasi ku darayaa in ololahan oo ay ka qayb qaadanayaan 220,000 oo kamid ah ciidamada gaashaandhigga dalkaasi dhinaca kale ee duqa magaalada Rio de Janeiro Eduardo Bosa ayaa sheegay in aysan habboonayn buunbuuninta xaaladda cudurka Zika virus taasoo wax u dhimi karta tartanka Olombikada oo ay martigelinayso magaaladaasi Rio de Janeiro ururada ka soo horjeeda madaxweynaha dalka Suuriya Al-Assad ayaa diiday joojinta colaadda sokeeye ee dalkaasi ilaa inta uu Al-Assad xilka dalka Suuriya hayo warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegayaan mar kale wariye Cali Barkhad jabhadaha hubaysan ee ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Al-Assad ka Suuriya
ayaa sheegay inaysan colaadda joojinaynin inta uu kursiga ku fadhiyo Bashaar al-Assad inkastoo ay dawladaha waaweyn ee adduunka ee hormuudka u yihiin Mareykanka iyo Ruushku ay ku heshiiyeen in la soo gunaanado colaadaha sokeeye ee dalka Suuriya muddada 5 sano ah ka holcaya haddana waxaaba si hor leh u bilowday gulufyadaha colaadeed ee sida ba'an u burburiyay dalkaasi dagaaladan cusub ee dib uga soo dhoob dilaacay dalkaasi ayaa waxa la sheegayaa inay dad aan yareyn oo kamid ah bulshada rayidka ee dalkaasi ay ugu carareen dhinaca soodinta uu dalkaasi la leeyahay dalka Turkiga dadka qaxootiga ah ee reer Suuriya ee ka cararay colaadaha sokeeye ee dalkooda ka aloosan ee ku jira xeryaha ku yaala dalka Turkiga ayaa waxay tiradoodu kor u dhaafaysaa 2.5 milyan oo qof dadka oo ay iskaashadeen dawladda Turkiga iyo hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiyada ayaa haatan gurmad aadannimo u gaarsiiyay dadka tirada badan ee Suuriyaanka ah ee ku soo qulqulaya xuduudda Turkigu la leeyahay dalka Suuriya guud ahaan khiyaarteeda qiimaha iyo sharafta mudan intaasi waxay noogu idil war wixii naga soo gaadhay deegaanka dalka iyo dacallada dunida wabahdi TV-ga Soomaalida Itoobiya isku duubneed leh warkan war lamid intaynu ku kulmi doono amaana Allah